بسم الله الرحمن الرحيم وهبينبا تلاده oo ay arbaca soo galayso 30 bisha December sanadka 2025 oo ku beegan 10 bisha Rajab sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijkan aan idinku haynana waxa kamid ah oo si adag u dhaliilay Netanyahu go'aankiisa ku aadan aqoonsiga Soomaaliland arrintaasi oo ku tilmaamay mid qaanuunka ka baxsan oo aan la aqbali karin dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya oo isagoo garab taagan dibgiisa Turkiga arrimahani ka hadlay ayaa yiri In our discussion today we strongly rejected Prime Minister Netanyahu's illegal aggression in recognizing part of Somalia's northern regions as an independent state Imaaraadkuna wuxuu ku dhawaaqay in ciidankiisa uu kala baxayo wadanka Yemen iyadoo Sacuudigu mar kale uu u qabtay Abu Dhabi in ciidamadeeda 24 saac kala baxdo dalka Yemen ma dhaba in ciidamo ka socda Mareykanka la geyn doono Ukraine tilaabo Ruushka ku tilmaamay qadcas oo aan laga gudbi karin sheekada ugu dambeysay barnaamijka aridii kuma hayaana waxay ku aadan tahay maxaad ka ogtahay dhismayaasha la degan yahay ee isku xiran ee ugu dheer dunida sheeko cajiib ah dhammaan qodobadan iyo waliba warar kale oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa xaggaasi iyo waddanka Yemen iyadoo warar kala duwan oo xasaasi ah ay soo baxayaan dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa saacado ka hor ku dhawaaqday inay si rasmi ah u soo afjartay joogitaankeedii military ee gudaha Yemen iyadoo wasaaradda gaashaandhigu ay sheegtay in tilaabadan si iskooda loo qaadayo si loo hubiyo badbaadada kooxaha ka shaqeynaya hawlgallada la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada isla markaasna ay ku timid isku duwid lala sameeyay la hawlgalayaasha caalamiga warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in go'aanka uu ka dhashay qiimeyn buuxda oo lagu sameeyay xaaladda hadda jirta taasi oo waafaqsan ballanqaadyada Imaaraadka iyo kaalintiisa taageerada sida hadalka loo dhigay amniga iyo xasiloonida gobolka Imaaraadku wuxuu qayb ka ahaa isbahaysiga Carabta tan iyo 2015 isagoo taageerayay sharciyada Yemen kana qayb qaatay dagaalka ka dhanka argagixisada si loo ilaaliyo amniga iyo xasiloonida dadka reer Yemen ayaa lagu yiri bayaanka wasaaraddu waxay xustay in ciidamada Imaaraadku ay si rasmi ah uga baxeen Yemen sanadkii 2019 kadib markii ay dhamaadeen hawlgalladii loo igmaday iyadoo wixii ka dambeeyayna ay ku koobnaayeen joogitaankoodu kooxo qaas ah oo taageerayay hawlgalka ka dhanka waxa loogu yeero argagixisada geesta kale xiisada siyaasadeed iyo midda dhanka diblomaasiyadda ee gobolka ayaa korosiya kacday maanta kadib markii dawladda Yemen ay ku dhawaaqday in Imaaraadku uu yahay cadow ciidan isla markaasna ay bixisay war ku aadan in si degdeg ah ay uga baxaan dalkeeda iyadoo dawladda Yemen ay burisay heshiiskii difaaca sidoo kale boqortooyada Sacuudiga ayaa ku eedeysay Imaaraadka tilaabooyin qatar ah oo ka dhacaya Yemen waxaana ay ku baaqday in ciidamadiisa laga saaro dalkaasi Yemen 24 saac gudahooda iyadoo ka digtay wax kasta oo halis gelin kara amniga qarankeeda Abu Dhabi ayaa sheegtay in go'aankan uu muujinayo wali ka go'aanshaha Imaaraadka ee xasiloonida gobolka inkastoo dib u habeynaya doorkiisa arrimahan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadayaan iyadoo goordhaweyto golaha wasiirada ee Sacuudiga shir uu gudoominayay boqorka dalkaasi Salman bin Abdul Aziz mar kale Imaaraadka loogu baaqay in ciidankiisa uu kala baxo dalka Yemen muddada loo qabtay ee 24 saac waxay ku soo kordha wararkaasi waynu arki doonaa xagga Ukraine aynu qoraasana iyo dagaalka Ruushka ay kula jirto madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa daboolka ka qaaday in wadahadallada uu la wado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ku saabsan yihiin suurtagalnimada in ciidamo Mareykan ah la geeyay Ukraine taasi oo qayb ka ah damaanadaha amniga isagoo la hadlayay dadka wararka fidiya Zelensky wuxuu hoosta ka xariiqay
in go'aanka ku saabsan dirista ciidamada Maraykanka uu gebi ahaanba go'aankeeda uu leeyahay Maraykanku isagoo xusay in ciidamada si buuxda ay u hoos imaan doonaan maamulka Maraykanka wuxuu sheegay in wadahadalladu ay socdaan isla markaasna isaga iyo Trump ay ka munaashaqoonayaan arrimahan waxaa kaloo qayb ka ah wakiilo ka socda isbahaysiga ballaaran tani si daacad haddii aan u xaqiijiyo madaxweynaha Maraykanka quddiisa ayaa go'aanka iska leh waana go'aan la xiriira ciidamo Maraykan sidaas darteed Maraykanka ayaa qaadan kara go'aan caynkaasi ayuu yiri Zelensky oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Ukraine Forum isagoo intaasi ku daray in arrintu weli ay tahay mid horodhac ah Zelensky waxa uu farta ku fiiqay in Ukraine ay jeclaan lahayd in ay ku aragto ciideeda ciidamo Maraykan ah si ay arrintaasi u noqoto damaanad amni waxa uu ku tilmaamay inay noqon lahayd tilaabo xooggan oo lagu xaqiijinayo amniga dalka hadaladiisa ayaa imaanaya iyadoo Ukraine ay xoojinayso wada shaqaynta dhanka diblomaasiyadda ee ay leedahay xulafadeeda reer galbeedka waxaanu ku dhawaaqay in taliyaasha amniga ee xulafada Ukraine ay ku kulmi doonaan 3 January waddanka Ukraine si loo mideeyo mudnaanta dhanka difaaca iyadoo shir madaxeedkan uu xigi doono kaasi oo la qorsheeyay inuu dhaco 6 bisha January ee sanadka foodo inagu soo haya waxaanu ka dhici doonaa dalka Faransiiska Zelensky ayaa sheegay in Kiev ay xiriir joogto ah la sameynayso Maraykanka wuxuuna uga mahad celiyay maamulka Trump ka qayb qaadashada wadahadallada imika socda iyo kuwa soo socda kadib shirkii dhawaan uu la yeeshay Trump ee ka dhacay gobolka Florida Trump waxa uu muujiyay inuu rajaynayo in Vladimir Putin uu aqbalo hindisaha la soo jeediyay waxaana wararku haatan sheegayaan in Ruushka laga warsugayo go'aankiisa waxaan u gudbaynaa goordhow shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Istanbul madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Turkiga oo si weyn looga hadlay arrinta aqoonsiga Somaliland ee Israa'iil ay samaysay waxaan kaloo idin haynaa warar kale oo arrimahaani iyo kuwa kale la xiriira laakiin aynu ku hakanoo qadar xayeysiina hada mar kale daawadayaan si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka weli waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad hagaag intaan u gudbin shirka jaraa'id ay qabteen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Turkiga oo codadkoodii oo turjuman aan idin maqashiin doono waxaynu ka hormaraynaa dhanka Mareyka Gaza iyadoo wadahadallo Washington ay gobolka Florida ay ku yeesheen madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wargeyska Israa'iil Hayom waxa gordhawato oo daawacay warbixin la xiriirta in labada nin ay isku afgarteen in muddo 2 bilood ah loo qabto Xamaas inay hubka ka dhigto waxaan intaasi ku daray in la dejin doono shuruudo cad oo lagu qiimeynayo wax ku oolnimada hawlahan la xiriira dhaqaaqa hubka telefishinka Kanal 12 Israa'iil ayaa soo wariyay in dibudhiska magaalada Rafah uu bilaaban doono ka hor inta Xamaas si buuxda hubka ay isan u dhigin arrintaasi oo ka duwan mowqifkii Israa'iil ee ahaa in aan la bilaabin wax dib u dhis ah ilaa iyo inta Xamaas ay hubka haysato madaxweyne Trump ayaa sheegay Isniintii in Xamaas ay wajihi doonto sida hadalka u dhigay cawaaqib aad u daran haddii aysan si dhaqso leh hubka u dhigin Mareyka Gaza ayaa waxaa ka jirta xabad joojin aan caga adag ku taagnayn tan iyo bishii Oktoobar laakiin Israa'iil ayaa sii wada weerarada goosgooska ah iyadoo ilaa iyo 400 oo qof la dilay tan iyo 10kii Oktoobar markaasi oo la gaaray xabad joojin su'aal ay gelinayaan jiritaankeeda dadka Falastiiniyiinta ibinkana Istanbul madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galabta kadib wadahadallo saacado dheer qaatay oo ay ku yeesheen magaalada Istanbul qasriga madaxtooyada waxay qabteen shir jaraa'id shirkaasi jaraa'id ka hor waxaa la sheegayaa in labada hogaamiye kulan khaas ah oo labada oo kaliya ay yeesheen warka soo baxay madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sheegay in looga hadlay arrimo kala duwan waxaana kulankan laga soo saaray war rasmi ah oo la xiriira in Turkiga iyo Soomaaliya ay iska kaashan doonaan arrimaha dhaqaalaha amniga iyo sidoo kale xiriirada kobaca iyadoo madaxweynaha Turkiga uu xaqiijiyay in 60 sano laga joogo
markii Soomaaliya iyo Turkiga xiriir dhanka diblomaasiyadda ay yeesheen. Haddaba waxaynu ku bilaabaynaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan hadalladii halkaasi uu kagan u diidinay tillaabooyinka sharci darrada ee ra'iisul wasaare Netanyahu uu ku aqoonsaday qayb ka mid ah gobollada waqooyi ee Soomaaliya sida dowlad madax bannaan aad ku soo daawateen. Waxaan idin haynaa sheeko xiise leh oo la xiriirta waxaa la ogaaday magaalo ku taal waddanka Ukraine guryaha ku yaal inaysan jirinba wax u dhaxeeya guryaha yani isku dhegan yihiin isku xiriirsan yihiin. dabcan waxaad maqashay dhismaha la yiraahdo derbiga Shiinaha oo dhirkiisa aad ogteen intuu joogo laakiin waxa ka dartay magaaladan ku taal waddanka Gariiga guryaha ku yaal. haddaba dhismayaashan dhaadheer ayaa waxaa la sheegaa inay yihiin kuwa la degan yahay dadku ay degaan oo caadiyanba waxaa loogu yeeraa derbiga weyn ee Shiinaha. waxay ku yaalaan magaalada la yiraahdo Molodishai ee waddankaasi Ukraine. dhismahan baaxadda weyn ayaa waxaa la bilaabay 1969 intii lagu jiray xilligii midowga Sofiyeeti wuxuuna dhamaaday 11 sano kadib. macnaha 11 sano ayuu dhismihiisu socday muddo aad u dheer kana badan inta caadiga guryaha lagu dhiso. mashruucan waxaa nashqadeeyay 2 injineer oo waddankaasi u dhashay waxaana la sheegay in ay noqdeen dhismayaasha isku xiriirsan ee ugu ballaaran adduunka oo xitaa aan lahayn waddo yar oo laga soo geli karo. waxaa la sheegaa in ay ka kooban yihiin ilaa iyo ku dhawaad 2 kilomitir dhismayaashaasi. 3,000 oo guri ayaa halkaasi ka dhisan waxaana la sheegaa 10,000 oo qof inay ku nool yihiin. inta badan waxaa la yiraahdaa magaaladan waa magaalo yar oo xitaa aan lahayn waddo la iskaga dhex baxo. waayahay waa arrin cajiiba. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino. haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo.